بسم الله الرحمن الرحيم maalmahan iyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxa shaashadaha ka soo muuqanayay xisbiga wadani oo hadalku uu qandho ku noqday waxay ka hadlayeen siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga dalka oo ay Soomaaliland dhaxalka kaliya ay leedahay ay tahay muddadii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay dalkan maamuleysay waxa dalkan lagu hagayay wax qabad muuqda waxaana la dardargeliyay horumarkii dalka hore uga jiray iyadoo lagu jaangooyay isku filaansho iyo isku kaashi siyaasadda madaxweynaha ayayna salka ku haysaa in qarankani uu wax soo saar yeesho oo laga tago wixii la iska oran jiray indhaha caafimaadka qaba way arkaan horumarka muuqda ee qarankan ka socda laakiin ninka daafindhaha kaga dhacay ma arkayo waxa soconaya wuxuuna door bidayaa in dadka oo dhami ay daaf qaadaan waxaan se leeyahay dawadu waxa weeye horumarka dalkaaga inaad dareento siyaasadda Soomaaliland arrimaha dibadda iyo siyaasadda Soomaaliland arrimaha guduhu waxay gudanayaan waajibaadkii qaran iyo xilalkii loo igmaday xisbiga wadani aragtidiisa kuma shaqeeyaan agtiisana kama oofinayaan shaqada ay qaranka u hayaan laakiinse waajibaadkii xilkan ka saaraa ay muddooda ugu adeegayaan aragti la'aanta iyo irdhowga ku dhacay xisbiga wadani waxa ku keenay bisay la'aantii tartankii doorashada taana waxa laga bartaa been abuur iyo hafar wadani waxaan leeyahay haddii dhegta la jaro daloolka ayaa hadhaya Soomaaliland xisbiyadu way xarbiyeen xukunka dalkana xeerka mid u xulay cod baana lagu xaqiijiyay doorashadii madaxtooyadu way dhamaatay haddii hibasho kursi iyo halacsi ku muuqanayo doorashooyin baa dalka soo socda ee badka kaalay kulmiye muddo xileedkiisii hore isagoo 2 sano jooga ayuu doorashadii golaha deegaanka oo muddo dhaaf ahayd uu qabtay doorashada golaha wakiiladana xisbiga kulmiye uu qaban lahaa laakiinse gudoomiye xisbiga wadani oo markaa ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa 12 sanadood hogaaminayay aqalkeena sharci dejinta gudoomiyahaasi wuxuu meel marin kari waayay xeerkii doorashada lagu geli lahaa wuxuu tahli kari waayay jaangoyntiisa amni qaybsiga ee golaha wuxuuna awoodi waayay inuu kursiga baneeyo meesha iska casilo hadduu taagiyo maaro u waayay inuu doorashada qabto waxa la yiri nin hadduu seexdo oo soo tooso waa kiisi maantana
xisbiga waddani ayaa doorashooyin dalkan ka qabsoomaan hadal iyo hoosiis la hortaagan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi way ka go'an tahay qabsoomid doorasho iyo geediga hanaanka dimuqraadiyadda dalkan in la sii wado la derdergeliyo waxaa la yidhi nin hulaab xumi inuu wax qarsanayaa la moodaa madaxweyne muuse biixi axsaabta qaranku u yeedhay wuxuu u muujiyey tala wadaag ixtiraam iyo maamuus haddii ragga qaarkii oo guddoomiyaha xisbiga waddani maamuuskii iyo qiimihii la siiyey ay u qaateen sawir lala gelayo waxaan leeyahay waa ayaan darro iyo saboolnimo siyaasadeed saadka siyaasadda iyo sunnaha xisbiyadu waa sahanka shacabka ee dimuqraadiyadda laakiin haddaad ka sasto libta iyo guusha qarankaagu gaadho ee ka suurto galay adiguna ugama sukaysid kuwa qarankan sarrayntiisa diidan ee fadqalalaha iyo fidmooyinka ku wada waddani hore wuxuu ugu sifoobay inuu horumarka dalkan ka hor yimaado inuu diido maalgashiga inuu beeneeyo oo uu yidhaahdo waa muhmal iyo waxaan jirin waxaa la meyd maxaa u dambeeya la kaa la sii sido mashruuca ballaadhan ee indhaha caalamka qaranka Soomaaliland ku soo jeediyey ee maalgelinta dekedda berbera shalay wuxuu lahaa ma jirto oo ma shaqaynayo waa taa la dhisay waa la dhagax dhigay waa la dhisaya waana la dhaqaajinaya hadalladii aa ku diidanaydeen iyo hagardaamadii aa ku hayseen way kaydsan tahay qarankanna karaamo iyadan u ogolayn iyo wax u soo kordha horena waa u sheegteen maantana rag waaweyn baan ka waantoobaynin oo weli shaashadaha la soo taagan taasi ma jirto oo miyaan la xisaabtamaynin maalgashi diidkii maantana midab kalu yeeshay Soomaaliland waxay kaliya oo ku tasqaaday oo beesha caalamka iyo dawladaha geeska Afrikaba ay ku majiirteen nabadgelyada buuxda ay qarankeeda ku maamusho waddani oo hore horumarka iyo maalgashiga dadka u diidana maanta wuxuu faragelin qaawan ku soo qaaday oo u eedaynaya oo ereyo aan qaban ka sheegaya amnigii iyo nabaddii Soomaaliland waxaan leeyahay war waddanow hoostiidaye hareertii madayo maanta Soomaaliland waxay leedahay cadow fara badan oo ku hareeraysan oo hanqal taagaya maanta oo kale gobonimadu waxa weeye in goradda la isgeliyo oo danta guud ee qaranka loo midoobo xukuumadduna xil bay iska saartay xaqiijinta xuduudaha iyo xoojinta amniga waxa ayaan daraa in maanta xisbiga waddani nabadgelyadiisa u tisqaaday uu ku sheego in dad la laayo oo bil walba iyo maalin walba dad la dilayay xaasha waa been shacabkaana markhaatiga dee furaya beelihii walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanka gobolka Sanaag degmada Ceelafweyn iyo deegaanka gobolka Sool ee koonfurta deegaanka Dhumay kuwii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba waddani tirakoob buu ka soo sameeyey geeridoodiina wuu abtiriyey wuxuuna ku masaalay oo saamileydii boqolayda ku qaybiyey ummadii halkaa shaydaanka iyo sharku isu geeyay walaalaha ahayd ee iska hormaadka beelaha ay ku kala dhinteen wuxuuna yiri bil walba intaasaa dhimanaysay waxaan leeyahay waa durbaan dagaal iyo dad isku dir Soomaaliland kama jirto meel dad lagu laayo dawlad dad laysaana ma jirto mana dhacayso Soomaaliland dhexdeeda in dad lagu laayo inay dad isku dilaan dawladdii loo doortay ayaa xil ka saaran yahay oo nabadgelyada sugaysa xogayaha waddani ayaa saxaafadda sidaa u sheegay oo shaaciyey arrintaa isagay ku kooban tahay halka uu ka keenay mala dalka lu joogaaye waa ayaan darro weyn waan leeyahay doorkiinii nabadda beelihii dirirtu dhex martay inay idin gacan ka geysataan oo ay idin dhex gashaan horaa u gabteen haddaa gabniinkii kaga hurudaan waxba ma ay haateene hadal baa ka daba keenteenoo waa adinkaa tiriyey ee tilmaamay waxaa kalood garawyo siisaan maalin walba aad meel ka hadashaan nin fidmo iyo fadqalalo dalkan oo la badheedhay oo xayndaabkiisa ka baxay oo falaagoobay taasina waxay muujinaysaa dareenkiisa inaad qabtaan waxaan leeyahay himbiriirsi arag maaha hunuuna hadal maaha ragga miciin biday siyaasadda madhalayska ee mala awaalka iyo maaweelada lagu maalayo waxaan leeyahay qarankani waa ka macno weyn yahay maalintii marmarsiyaha beenta bulshada lagula dhex wareegayay waxaan sii oran lahaa madax laguma noqdo magac laguma helo meelna laguma gaadho midabaynta
iyo kala muujinta bulshadaada ee aad weji ku macaashka la dhex marayso. ugu dambayn siyaasadda madaxweyne muuse biixi cabdi uu dalkan ku hagayo muddo xileedkiisana ku maamulaya waxa weeye wax wada qabsiga wada jirka ummadda wax wada lahaanshaha iskaashiga iyo horumar dalkan in la gaadhsiiyo. shacabkayga reer Soomaaliland wuxuu soo jeedinayaa inay nagu garab galaan waxtarka aan wadno. waddani waxaan ugu baaqayaa inay danta guud iyo dadaalka dalkan ka socda arkaan oo ay indhahooda siiyaan iskana daayaan inay u xusul duubnaadaan xasaradda xinka iyo xanafta ay bulshada dhexdeeda ku xoqayaan. aad iyo aad baa u mahadsantahay.